waxay shaqo u doonatay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble gabadha markay shaqo xafiiska u doonatay meesha ay sugayso in shaqo la siiyo baadad mu'aamarad ajnabiyana ka shaqeynayay rabay dalka inay khalkhal galiyaan ba waxay u isticmaaleen gabadha nafteeda in khatar la geliyo nolosheeda khatar la geliyo mas'uuliyadda koowaadna qofka qaaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waa gabadha maalinta gaariga lagu soo qaadayo waxa loo ballanbiyay wasiir ku-xigeenka warfaafinta al-Cadaala oo u kaxeeyo ku yiri ra'iisul wasaaraha shaqo ku siinayo maalmahaas ku noqnoqota xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqo lagu siinaa lagu yiri ayadana shaqo raadis ahayd mar waxay ka fikirtay guddiga doorashada inay oo Hirshabeelle inay gasho mar waxay ka fikirtay inay xildhibaan Hirshabeelle noqoto haddana way iska daysay markii dambe xafiiska ra'iisul wasaaraha tir shaqo u doono sidii wax u dhaceen tafaasiisheeda inteeda badan ma raba hadda inaan galo laakiin intaan ku sheegi karo waxa waaye gabadhaas gaariga lagu qaaday nin la yiraahdo xildhibaan oo la yiraahdo Mahad Salaad oo hadda rabta feelkiisa mar kale aan furayno ama su'aalo kale ku furayno baa la kulan siiyay asaga gaari ku qaaday gaarigii baa laga qaaday waxa la geeyay Dar es Salaam xaafad la yiraahdo Xamar ku taala oo dadka magaalada ugu ladan ay degan yihiin gurigaas laga qaaday waxa la marsiiyay Shabeellada hoose meel jilib u dhow baa la geeyay halkaas aan lagu dilay nin la yiraahdo Mahad Karatay oo madaxda shabaabka kamid ah operation ka fuliyay oo ay xiriir dhow leeyihiin Mahad Salaad ra'iisul wasaaruhuna aweer buu ahaa wuu ka warqabay dhibaatadaas in loo geysanayo wuu ka warqabay aakhiro ay adduun qofka gabadhaas la weydiinayo waa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble farsamada lagu fuliyana al-Cadaala iska lahaa gacanta fulisayna Mahad Salaad waaye cidda dishayna waa al-shabaab sidaas aan kugu sheegay oo qorshahaygu ahaa inaan guddiga amniga qaranka hortooda ka sheego laakiin si aysan xogtaas u bixin waxa la qaaday 4 talaabo hay'adda la dhoofaada shaqada laga joojiyay taliye cusub in la magacaabo waa doctor taliye cusub la magacaabay aniga ila boorka leegu celiyay Djibouti anoo transida oo dawladda Djibouti la isticmaalay oo la dhaxgalay markii aan xamar imaadayna waxa la diiday shirka in la qabto warayzaaro wuxuu diiday inuu shirka soo qayb galo marka hadii kiiska inta talaabo oo la qaado waxaad ka garan kartaa cidda qaadaysa maxay kiiskan u qaadaysaa taliyaha nabad sugidda hadii la rabo in la baaro shaqada laga joojiyay taliye kale la magacaabay safarkii baa loo diiday shirkii baa la diiday waxay ku tusinaysaa waxaas oo dhan waxa loo sameeynayo lixaajatin fi nafsi Yacquub wax uu og yahay baa jira waa wax asaga uu og yahay inuu sameeyay maadaama uu sameeyay cid allaale iyo cidii warbixintaas sheegi kartaan in la dagaalamo dagaalku ra'iisul wasaaraha uu waday oo hay'adda ku qaadan laba hadaf oo kala ahaa sumcadda hay'adda in la dilo institutionka dawladda la burburiyo oo meesha ajnabiga ay ka soo galeen oo ay rabaan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka maadaama ay dawlado fara badan dhaaftay oo qaarkood dariska ay ka hormartay in dib loo soo celiyo heerkii fargelinta maalinta aan ku sheegayna lagu soo celiyo dawladda ajnabiga ee kiiska Ikraan fulintiisa fududeyntiisa qaadatay way waa laba dawladood mar raba hadda magacooda inaan sheego dadka Soomaaliyeedna waa fahmayaan laakiin mar raba inaan magacooda sheego laakiin Fahad waxaad sheegtay magacyo ay kamid yihiin Mahad Salaad oo hadda hay'adda haysta injineer Maxamed Xuseen Roble oo ra'iisul wasaare ah iyo Cabdiraxmaan Yuusuf al-Cadaala oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta sidaas la mid ah dadka ajnabiga ah ee kiiska lugta ku lahaa ee aad eedeynaysid dadkaas dawladahaas labada sheegtay in magacoodid ayaan ka doonaynaa hadda inaan sheego diyaar u bihi asbaab jira dartood waxyaabaha jira markaad mas'uul sirdoon soo noqotay fasax u baahanta wadan iska sheegi karin hadda fasax laakiin dadka Soomaaliyeed waa og yihiin dawladahaas aan ka wado way yaqaaniin imaaraadka iyo Kenya iyo noqon kara adiga dhahay ani ma dhahin hada dhahay gabadha gaara lagu qaaday sa sheegtay waxa la geeyay xaafad magaalada Muqdisho kamida gaarigana waxa sheegtay in loogu ballamiyay xafiiska wasaarada wali ani wadanka waa ka maqanaay markaas sidku ogaatay waxa rabaa inaan kugu daro xataa aan ka ilaabay dadkaas markastoon aniga wadanka ka maqanahay mashaariic sameeyaan kiiska Ikraan waxa la alifay anoo maqan kiiska hay'adda isbedel lagu sameeyay waxa la sameeyay anoo maqan saddex bari ka horna ma aqaan la socotay isbuucii hore gurigeyga la galay ciidankii iyo qalabkii iyo wixii yaalay baa la qaatay anoo maqan hal mar anigoo jooga waa awoodi waayay inay wax sameeyaan sidku ogaatay xogtan dalka dad ka maqnay waa xog culus oo xasaasiya in dad mas'uuliyiin maanta ah oo mas'uuliyiin xilal sare haya oo waliba booska aad joogtay niisa sargaalka loo magacaabo mas'uulka loo magacaabay
aad ku eedanayso inuu kiiska isagu wax badan aan ka ogahay intaas kaliya ma aha qal dhibaato fara badan oo amni darrada dalka ka dhacday qayb bay ka ahaayeen dadka aan ku sheegay laba arrimood laga lahaa in hay'adda sumcadeeda lagu dilo amniga dalkana lagu khalkhal geliyo ma salaadna amni darrada dalka waxyaabo badan oo khalkhal ku sameeyay in ka badan 60 maalmood oo gabadha la